haddii update loo baahdo waxaan leenahay haddii typekeena uu la mid yahay update it means haddii update la sameynayo waxaan leenahay update tablekeyga loo yaqaano users set id-ga lama update garanayo soo ma first name-ka iyo last name-ka email-ka sidoo kale lama bedelo sax waa soo ma password-ka janji password loo sameeyaa lama update gareeyo isagana waxaa la bedeli doonaa first name-ka iyo last name-ka iyo user type-ka bas labadaas bas aan bedeli doonaa first name-kan wuxuu la mid yahay wax kasta oo qofka first name ka soo gelin doono website-keyga comma and last name-kana wuxuu la mid yahay wax walba uu last name ka soo gelin doono variable-kaas wax kasta oo la soo geliyo iyo ugu dambeyn user type-keyga wuxuu la mid yahay wax kasta oo user type-ka oo la soo doorto yaa waay laakiin qof kasta maya qof kasta ma aha waa qofkan aniga u baahanaa bas yaa waay qofkan waa user id-ga la soo doorto where user id ay la mid tahay user id-ga la soo dooran doono id hebel ayaa la update garin doonaa bas soo ma haddii kale dhammaantood ayaa la update garin doonaa qofka soo qaatay SQL server ama SQL wax badan wax tusin doonaa ugu dambeyn haddii delete loo baahdo if type-keyga uu la mid yahay delete this is dynamic SQL statement ayaa loo yaqaanaa dynamic SQL statement ayaa loo yaqaanaa begin then end delete-ka way sahlan tahay delete from is optional kadibna waxaan leenahay table users waa laga tegi karaa meeshan laakiin most of them isticmaal way qurux badan tahay kadibna waxaa raacin doonaa where condition waxaan leenahay where user id waxaa la tirtiri doonaa qofka la soo select garay bis user id-gaas loo baahan yahay oo keliya ayaa la tirtiri doonaa well done intaan waa samaysanay table-keenan insertion aan u samayn karnaa update-na waa u samayn karnaa delete-na waa u samayn karnaa waxaan noola samayn doonaa table hadda haddii aan furno database-keena waxaa noo samaysan database loo yaqaano online banking refresh aan dhahno waxaa noo samaysan online banking haddii aan furno waxaa noogu samaysan table loo yaqaano users qaybta store procedureska ama programmability haddii aan furno waxaa noo samaysan store procedure loo yaqaano inserting new user waayahay aan iska xirna marka table-kaas rabaa inaan arko formkiisa aan sameeyo kadibna insertion iyo update iyo delete aan u sameeyo waxaan kusoo laabanaynaa meeshan waxaan oo dhan waa iska xiraynaa hal form cusub aan kusoo darsanaynaa oo loo yaqaano user registration waxaan imaanaynaa solution explorer-keena qaybta admin-ka aan rabnaa inaan kusoo darno yaa abuuri karo qof cusub admin-ka oo keliya soo maa waxaa leenaha right click add new web form with master page haddii aad hal mar kusoo darsato qaybta hoose oo ku imaan doonaa templateska web form with master page waxaan u baxsanaynaa users wuxuu ku xinayahay our master page formkeena design-kiisa samaysan sidee form loo sameeyaa haddii aad meeshaan imaato bootstrap-kaaga formiska sida loo sameeyo waa baran kartaa tusaale ahaan forms templates oo ku siinayaa meeshaan ka daro aniga hadda waan u boobsiinayaa formkeena maadaama waqtiga uu inahayo waxaan samaysanaynaa marka ugu horeyso wax loo yaqaano container glass loo yaqaano container glasskeena waxaan dhex gashanaynaa glass loo yaqaano car waxaas oo dhan bootstrap-ka ku jiraan faylashooda waa haystaa sida loo isticmaalo keliya baro carkeena waxaan dhex gashan doonaa wax loo yaqaano ma laga yaabo inay kuu shaqeyso habkan anigaa isticmaalayo laakiin waxaa isticmaali kartaa inaad dhahdo div kadibna glasska aad rabta raadi tusaalaan glass is equal to car this is my car glass waa dooranaysaa maadaama computerkeyga uu up to date yahay waxaan isticmaali doonaa lorem epson waa soo gaabin doonaa waxaan leenaha carkeyga waxaa igu dhex jira wax loo yaqaano car header boxkeyga header uu leeyahay headerkeyga waxaa ku dhex jira it means h4 waxaa lii sameeyay glass loo yaqaano header waxaan dhex gashanay box h4 waxaan leenahay add new user account user cusub diiwaan geli sidoo kale waxaan rabnaa car body inaan sameyno car body-geena waxaa ku dhex jira wax loo yaqaano form group-keena waxaa ku dhex jira row-geena waxaa ku dhex jira column-keena waxaa ku dhex column-keena waa medium waaye oo 12 it means form ha lii sameeyo group formkaas one row ha loo sameeyo rowgaas hal column ha lasoo dhex geliyo oo 12 it means column kasta 12 ayuu ka kooban yahay 12 qayb maadaama 12 qayb uu kooban yahay meesha dhan uu qabsan doonaa waay
kadib waxaan soo gashan doonaa waxa loo yaqaano first name kadibna ASP textbooks xagee laga helaa toolboxka ka soo qaado textbooks drag and drop wuu naga diiday sababtoo naga diiday waa maxay haddaan sameeyey filekan loo yaqaano filekan haddaan sameeyey maadaama hadda aan sameeyey wuu diidan yahay waa kansalayaa kadib aan mar labaad soo ran karaynaa wuu ii samaysan yahay waa soo ran karaynaa hadda haddii aan soo qaato toolboxkayga drag and drop oo aan dhigto textbooks 1 aan soo dhigay textbooks 1 keen ID-giis waxaan baxsanaynaa txt first name waxaan ku darsanaynaa placeholder waa maxay textbookskaaga wax ka soo muuqan doona textbookskaaga wax ka soo muuqan doona korkiisa waxaan leenahay placeholder is equal to enter first name kadibna waxaan ku darsan doonaa CSS class waxaan leenahay form control kadibna waxaan leenahay form dash control dash small form control ha lagu daro iska yar bal aan gareyno hadda projectigan sidoo noqonayo bal aan waxaan leenahay right click view in browser ama control shift B haddii aad rabto waxaad dhigi kartaa control F5 si browserka uu ran gareeyo browserka ay uu ran gareysan doona hadda waa maxay Google Chrome waa midka adiga markaas kugu jira ayuu ku ran gareysan doonaa midka markaas kugu jiro ayuu borsaas iga soo bixi jaajar This is my bank system. The first textbooks of our website. Textbookskay koowaad ayaa meeshan igu jira. Waayo formkan aad u weyn waa iska yareynaynaa xoogaa. Centerkiisa iyo wordskiisa iska soo yareynaynaa. Kaarkeena waxaan siinaynaa wordskiisa waxaan leenahay 75. Sidoo kale waxaan siinaynaa margin automatic. xoogaa waa la soo yareyn doonaa. Yes, hadda formkayga waa la soo yareeyay. Inta kale aan isticmaala iga leeyahay. Geeska jirgeli waayahay formkeena tagasikooda nala sameeyey waayahay tablekeena aan inta column uu leeyahay aan sameyna marka select star from the table users tablekeena how many uu leeyahay 1 2 3 4 5 6 soma ko labo saddex afar shan kan waa automatic asaga soconaya uma baahnin faraanka qaadina intaan kala aan buuxisno marka column keenan waxaan leenahay first name no copy column kaas marka isla column ka copyinina last name and email password confirm password ugu dambeyn user type intaas oo baahan kan waxaan ka dhiganaynaa txt last name inta waxaan ka dhiganaynaa last name meesha maxay noqon doontaa last name kan wuxuu noqon doonaa email soma email textbooks kan wuxuu noqon doonaa txt email and then email address sidoo kale kan wuxuu noqon doonaa the password soma password txt password text mode uu leeyahay text mode means nooca text uu yeelan doono text mode-kiisa waa password inta waxaan leenahay password ugu dambeyn kan wuxuu noqon doonaa isagana confirm password textbookskeena waxaa laga yaqaanaa txt confirm qoraalka ku qoranna muxuu noqon doonaa confirm password ugu dambeyn user type nooca userka uu yahay waxaan leenahay user type-keena waa combo box ma noqon doono text box caadiya drop down listing ugu baahnaa means userska meel aan ka dooran karno waxaan imaanaynaa isla toolboxkeena qaybta standardka waxaan kasoo qaadanaynaa drop down listigeena waxaan baxsanaynaa it means ddl magacyadooda rabnaa inaan bedelno sababta magacyadu bedela waa maxay codeka markaan qoraa inaan xasuusan karo ddl user type kadibna waxaan ku darsanaynaa css is equal to form dash control and then form dash control glasses jira waaye dash small designkiisa imaanaynaa waxaan rabnaa inaan kusoo darsano laba shay bas sorry